anigu waxaa la yiraahdaa Dr. Maxamed Maxamuud Faarax. Waxbarashadeeda caafimaadka waxaan ka bilaabay caafimaadka intaan ka hormarin. Dugsi hoose waxaan ku dhigtay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. Dugsigii hoose markaan dhameeyay waxaan u wareegay magaalada Boosaaso. Halkaas waan ku qaatay dugsiga hoose, dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Kadib markaan dugsiga sare dhameeyay waxaan u wareegay magaalada Muqdisho oo aan ka bilaabay waxbarashada qaybta caafimaadka jaamacadda la yiraahdo Jaamacadda Soomaaliya ama University of Somalia. Jaamacadaas markaan dhameeyay waxaan aaday wadanka Uganda jaamacad kale oo ku taalo la yiraahdo International Health Science University oo si gaar ah baan halka waxaan ugu soo diyaariyay qaliimada dumarka iyadoo ay ugu kaliftay markaan arkay in dalku uu u baahan yahay xirfad uu u baahan yahay dhaqaatiirta soo baxaysaana ay yihiin dhaqaatiir dawadiisa sameyn kara oo dawooyinkiisa si sax ah u daweyn kara dadka. Laakiin maanta qof wax yar ku dhaco waliba xagga dumarka hooyada uurka loo kale hadii maanta ay dhali kari weydo oo aan qaliin u sameyn karin ama aan caawin karin ama aan u sameyn karin caawimaad anoo taa ka duulaya maadaama dalka Soomaaliya uu ku jiro wadamada maternal mortality rate-ka ugu badan Afrika iyo guud ahaan dunida. waxaan siri warbal xagee wax ka qaban kartaa ugu yaraan adigu shakhsiyadaada. Marka waxaan go'aansaday in aan si gaar ah qaliimada dumarka aan xoog u saaro iyo dawooyinkooda. Jaamacaddaas aan tagay Uganda ku taalo oo ay jaamacadda aan ka baxay xiriir lahaayeen. Aan ka mid noqday ilaa 12 dhakhtar oo la diray oo jaamacaddu ay dirtay oo 12kii ugu marks ka fiicnaa ugu dhankasta ay isdhahaysay jaamacaddu way u fiican yihiin haday tahay wadanka la aadayo luuqadiisa iyo meelo badan wax laga fiiriyay. Marka isbitaal baan tagnay jaamacaddu ay lahayd muddan joognay waan ka tagnay haddana isbitaal kale oo dawladdu leedahay ayaana la ku qoray oo ku yaala gobolka Embraer la yiraahdo oo uu ka soo jeedo madaxweynaha Uganda. gobolkaas isbitaal ku yaala oo la yiraahdo Bwera General Hospital oo isbitaalka afraad ee wadanka Uganda ugu fiican ayaan ku soo qaadanay trainingkaas ama takhasuskaas gooniga. Isbitaalku waa isbitaal dawladdu leedahay oo wuxuu ahaa adeegyadu free yihiin, caafimaadku free yahay, dawadu free tahay, shaybaadhku free yahay, qaliimada oo dhan nooc kasta yihiin oo bilaash yihiin. runtii isbitaal ku yaala xadka magaalada Bwera magaalada yahay buu ku yaala oo Congo iyo Uganda meesha iska galaan oo xadka buu ku yaala. waa isbitaal Ugandese badan lagu daweeyo dad badan oo Congolese oo Congo ka yimid oo xadka ka soo galay maadaama Congo ay burbursan tahay oo systemka caafimaadku san hagaagsanayn iyagana lagu daweeyo. Marka safarkayga waxbarasho halkaas waa